jacaylka qeexida ugu horeysa aan soo qaadana waaye waa hees uu sameeyey abwaan laab saalax uu qaado nimca hilaac ma inaan macnihii music ku qanacsana laakiin sugaanta xigmada ku jirta waa in la sheega marka heestaas waxaa waaye jacayl waa dareen damac weeye aadmiga qalbigooda dega oo aragtida ku daare يعني عدك إلى معاموت عرفت جعل مثل القاحة لازم قف كستو قاحس وحا لازم هنا أرجع درين لك هذا أدي كان أدي ماشي درين لشيء يقول جعل ملك هذا لكن درين أسوش هذا وحواس هذا وسوق دوي أدوسن وذهلين هذا وسوق دوي أنا أبغى كس سنة قوة مركا عرفت ذا كدارة وكلا بسنة عندنا حغير خطابنا وحياته تحاوي قف مركور سيا أركجنا وأركي يعني مركور مهم كلها جنها هذا المهم كلنا قناة مركور مرادين جنها هذا ورادني noocyo badan buu dabcan u qaybsamaa jacaylku oo loo kala ableeyay ama loo kala saara bal hadii aad durmar yar oo kooban ku samayso noocyada jacaylka sida aan ku xusay buugayga dhisida qoyska jacaylka waxaan kala qaaday aniga labo mid nolosha adduunyada ku saabsan mid cibaadada waxa waaye Allah subhanahu wa ta'ala jacaylka qabtid nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam jacaylka qabtid diinta jacaylka qabtid waxyaalahaas oo kale iyo asxaabta iyo marka kaasna waxa la rabaa kan cibaadada kan nolosha inuu ka weynaado la rabaa diigna le waxa waaye iimaankaagi daciif ku jira halisa ku jirta oo nabi sallallahu alayhi wasallam markii Sayyid Umar u dhahay Umar bin Khattab radiyallahu anhu nabi Allah nafteeda ma inta kale ka jecel xaaskeyga caruurteeda hantideeda waxa soo isku daray iyo ada ku jecelahay inta nafteeda ka ahayn adan ka jecelahay markaas nabi wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam Umar wali markaas Umar wuxuu dhahay hadir nafteeda xataa ka jecelahay markaas uu dhahay nabi sallallahu alayhi wasallam hadir asxanta marka jacaylkaas oo cibaadada horta waxa waaye in miisaankiisa uu weynaado kan nolosha ku saabsan loo sii galbaxaa mid impersonal maxay shay ama arin loo qaado shay tusaalahan lacag sar ala geel arin tusaalahan madaxweynimo professornimo qoraanimo orinimo aan soo on maxay midka arinta ama shayga ah iyo midkan qofka binaadamka loo qaado qofka binaadamka in laba kala baxaa jacayl jinsi laba nooc oo aadana isjeclaanaya rag iyo dumarka iyo non sexual oo jinsiga ahayn kan jinsiga waa kan labada shukaansanaysa oo soo fahanto isguursan rabta ama hadii kale isguursatay isqabta jacaylka isku qabaan maxay kan aan jinsiga ahayn waxa waaye waxa kamid tusaalahan hooyada wiilkaaga maxaa la saaxiibka marka asagan loo kala baxaa labada kala baxaa waaye dhiig dhalasho mid ka yimaado iyo mid habdhaqan qofeed ka yimaado dhiig dhalasho mid ka yimaado waxa waaye kan ahalkaaga marka laga reebo xaaskaaga marka laga reebo xaaskaaga u qabtid oo saddex xeer ah wax ku dhalay oo ka koreeyo waxa kula dhashay oo kula saman iyo waxa dhashay waa ka hooseeya iyo kan habdhaqanka qofka ka yimaado waxa waaye saaxiibka wiil saaxiibatiin oo aad isu dheeraysiin wiil saaxiibatiin oo aad isu faaqantiin intaas oo ka qabsana jacaylka qaybahaas soo sheegtay marka kan jinsiga ama la xiriira lamaanayaashii iyo isdoonistii wiil iyo gabadhii laba qof oo kala jinsi ah lab iyo dhadig kaasan doonina bal inaan dul istaagno dabcan laba heer buu leeyahay saad ila wadaagtay oo guurka ka hor iyo guurka kadib bal labadaas iyo farqiga u dhaxeeya muhiimadiisu waxa waaye guurka kadib laakiin anaka cagsiga ka dhignaa guurka hor aan ka dhignaa guurka ka hor waa banaan yahay waa imaan kara oo adilooyin waxaa ka mid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam hadda ka hor intuu nolaa qiso dhacday gabar agoon ahayd oo ciideediina sabab lahayn waxba haysan oo daayar waxay isjeclaayeen wiilka loo daayar sabab lah waxba haysan asagana isjeclaayeen ma isqabaan waa ishukaansadaan waxbana ma haysto wiilka sabab waa ayaduna sabab cid sabab oo agoon ah waaye nin dhaqaalahaasna oo hanti ilaahay siiyey oo weyn soo doontay marka gabadhii adeerkeed marka dhaqaalahaas soo jiitay ninkaas la rabaa hooyadeedna jacaylkeeda u difaacaysaa wiilkii la rataa marka maxay ahayd nabiga la isku tagay gar markii isku dhaceen
اسمر وين خلافين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم قرتي ما أصلهن قول كور جعلك إيمانا محاوي هو عن جالسين محاوي جعلاني محاوي نلكرا دقيقرا وهي أصلا ما أصلهن هذا سمعنا عنك عديلهن لقياه النبي صلى الله عليه وسلم حقوق جاوي لم يرى للمتحابين مثل الزواج لبا استعال guur ayaka in isguursadaan wax ayaka uga mudan male inkastoo isaas tahay haddana aniguna aan qabo markii la soo baaro la soo qanaa kadib hal isku day in la isjeclaado iyadoo la isguursan waa la isjeclaan kara waa jecelka dhisidii reerkii waa kasi fududeyn kara laakiin maxay ahayd haddana in xoog la saaro in guurka kor jecelka ma qabo khaasatan mobile la qurux badan inuu imaado intaan la isku soo qancino la soo xiran kor laakiin kan guurka kadib النبي صلى الله عليه وسلم الحب بعد الزواج قول كذب ولا جعلن سنوات مركز أكسس لمستر الإسكولية مركز حاب الإسسين كرا مركز الإسشومين كرا مركز الإسلتيفن كرا مركز محيط علماء البيولوجيا يسايكولوجيا يون محيط تعالك وحي لي ما يسي قلمضي كالوين كله مركز galmadii marka maxay ahayd ma dhici kartaa intaan la isguursan ka hor ma la ishumin karaa intaan la isguursan ka hor hab ma la isiin karaa intaan la isguursan wax badan ma la isla joogo intaan la isguursan ka hor marka jacayl dhammaystiran markaas uu imaan karaa jacayl dhammaystiran markaas uu imaan karaa markaas jacaylka la balaarin karaa markaas la korin karaa markaas la ilaalin karaa laakiin anako cagsi annaho banaankan kusoo kornaa kusoo weynaa kusoo qaangaarsiinaa jacaylkii weyn markuu guri yimaado iska dhintaaba waayahay waxyaabahaas markaa keenaya inuu isbedel yimaado ama jacaylkii uu daciifo markii guriga la keena kadib ama labada qof midoobaan oo ay wada aqal wada dhisaan caruur wada dhalaan maxaa keenaya waxyaabahaas aan dhowr waxyaabada keenayo waxaa kamid ah markii la isguursado in la isyeeshtay in oo guurkii waxaan ka aaminsanahay in qofka mar haddaa guursatay khalaas waa shay aa soo galatay camal qofkan gabadha waxaa ku guursanay rabitaankeeda annagu dhaqanka ma hadlayna diinka ka hadlayna dhaqanka iyo diinta hadii iska hor imaadaan dhaqanka raali ah wala leeyahay kitaabka Allah wax ka sareeyo ma jiraan dastuurka wadanka u degan wuxuu leeyahay kitaabka Allah u sareeyo kitaabka Allahna haduu ka hor imaado dastuurka wala diida marka maxay ahayd dhaqanka waxyaalaha diinta ugu hormaana kamid ah si reerka lagu dhisaayo iyo sida reerku lagu dhaqaa oo xornimadii meesha ka baxayso xoog gabadhi aan waxba la weydiinin haddii diidan la qasbayo haddii dhaqankii diidan la qasbayo haddii dhisidii diidan la qasbayo haddii dhaqadii diidan la qasbayo farda afar leeyahay dhisidii wax ka jira male bal culimadu waxay leeyihiin nikaaxa markuu dhacayo gabadha markii la weydiiyo ninkaas lagu daraa la weydiiyo haddii maya ay soo istaagto ma ku xirmaayo maya haddii taageentahay ma ku xirmaayo laakiin haddii iska aamusto haddiisan gorobahin gabarta iska aamusto oo ku xirmaa haddii cabsato ayadoo cabsanaysa ha iska tiraahdo oo fardo ay faraha xabaar ka cabsataa ceerinka cabsataa wax doonta ka cabsataya ha iska tiraahdo iyo ku qanacsanaa haadadaas oo kula xirmaa laakiin maya haddii taageentahay ma ku xirmaayo horta taas in la ogaado muhiim waa mid midda kale xagga dhaqidiina waxaa laleeyahay maxay ahayd biil maa kaa weys baat maa ka weys hebelkaa maa ka weys aad milida gurigaada joogo xaga dhaqo xoog marka wax ku dhaqmaayo male cabdullaahi bin cabaas mufasir hada umma asagoo maraad isku fiirinaya halaay maxaa kugu dhacay nin culus aheedaysa camal maraad iyo waxaa isku fiirinaysa anaka nin maraad fiirinayana soo naag la ku naqaana soo marka wuxuu dhahay naagtiida isku qurxin asoo maraad isku fiirina oo shaleysana ahayd naagtiida isku qurxin waa yiri gabadhan shukaansanama uusan dhigan naagtiida isku qurxin waa yiri xaaskii sababtee wuxuu dhahay ayadu se isugu qurxinaysa aan isugu qurxina maxaa meesha taalo walahunna mithlu alladhi calayhin naagtan ma tiraado يعني أيضا شغالة أدون فهمت ماشي كم جت قف دم كويسين إسفهم كل جويسين هذا متقين قنع معنا أو شيء كبير كرا أو أيضا فرينك كيني كرت أدين أفرينك كيني كرت هرت إن الساس لسفهم هرت مركب ميمة ومد مركب تاسم حكي أنت مركب محيط إن إسليجش يو يعني قفنا مكاتي موينس يحرس عمل ومد كله
misconception xooganaa jiro qalad laga fahamsan yahay guurkii markii la isguursan rabo intaan markii la iskuunsanayo guurka waxaa loo maleeyaa keliya raaxo iyo marka la isku raaxaysto oo keliya waajibaad iyo xuquuqaad mas-uuliyaad inay jiraan maskaxdii lama gashanin laguma xisaabtamin inay culus yihiin caqabado badan yihiin dhibaatooyin la kulmaayo lagama sii fakarin dan markii guurkii laisu yimaado waxaa dhahayso in maxay ahaytood caqabado fara badan imaadaan caqabadihii faraha badnaaya marka maxay ahaytood qof walba uu ka qaracma waayo Soomaaliya tira nabar afilis xanuun male abuukarow qoysaskii marka dhibaatooyin badan oo soo sheegtaa dabcan ka jira laakiin kuwa keenaya maaragtay in qoysaskii iyagoo jacayl iska soo guursaday guriga markay wada yimaadaan oo jacaylkooda si daciif iyagu ay mas'uulka ka yihiin horta marka koowaad waxaa khaldan qaabka nolosha bulshada oo misconceptionkii aan kusoo sheegay kamid in wixii dadka aan loo soo sheegin maxay u tagayaan inta badan looma soo sheego barnaamij course ma jiro hore wax loogu school iyo wax loogu soo sheego marka waxa waaye shil guriga ku noqona shilkaas iyo caqabadiyo badan iyo maxay qofkii qof walba gooni soo buuqay san ma maleeynin ay isdhahayo oo la isnaayo marka isnaayo waxa keenayo jaceelkii oo la isu qabay availability iyo aad soo kordhay oo maxay qof walba isleeyahay hadda waa ku qabaa iyo waa qabtaa iyo aydiyo meesha taal aadan meesha xamaanayso jaceelkii oo marka taas hoos u soo dhigo soo yaraatay waxa hadana imaanaysa in jaceelkii baahidiisa intuu la ekaa dhibaatooyinka waaweyn ay timaado jaceelkii in laga tanaasulo oo mudnaado oo maxay marka waa wax hadeer xalkoodii inaan la tilmaamo mudan xalka haddaan tilmaamo markaa waxaa xal ah marka koowaad guurkii ku isqaban sheega oo weli aan guursan sheega ku isqabo waxaa la weli maxay marka hore in dhabaha saxan la qaado oo yani nabi maxamed loogu daysado sallallahu alayhi wasallam asaga guuleystay guusha looga daysado adduunka aakhiraba marka maxay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam soo dhaqan jiray reerkiisa ana kasna oo dhaqana kaafi kala dheer waxa waaye waxay gaalada romance iyo maxay ahayd intimacy-ga iyo waxyaalahaas bal gaal yaan ka fiirin wiilasha Soomaaliya romantic maan Afrika maan lagu leeyahay wiilasha Soomaaliya romantic nabi maxamed diina nabi maxamed oo uga dasanayeen romantic ugu weyn adduunyada ahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam kalaaska umuna Aisha caanaha ku cabto haafka soo reebtay meesha afka ka saartay saantu soo wareegsado isla meeshaas afka ka saarnay romantic nimada intaas gaarsan ninka la adduunyada maanta la isoo sheego sifooyinkii jacaylka wanaagsanaa in looga daydan aad marka romance gaalkan sheegay iska dhaaf anaka ka khatarsan laakiin anaka wixina aan isticmaalno nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaga maxay intimacy kood nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay wuxuu dhaleecana ninkan rabanaagtiisa inuu maanta inta dilo caawan la seexdo aan hagaysto waxyaalo badan oo na baraya laakiin anaka aan soo jeedin oo aan soo koobi karin marka guurka waxa waaye waxa la isku guursanayo in farxad la isasiiyo oo la isku xasilo ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا معكم لتسكنوا إليها لكي أن تسكنوا إليها لأجل أن تسكنوا إليها واي ماريج كورك محاوي سببتيس وجديس وين وجودين دورها جيران وأولادك متى لكن وجديس وين وقرانك لوحس أو سببت كورك لو شيء وحاوي حصلدي لكن هذا حصلدي كذا نقطة كبر ومش حصلت أكيد كلا اعتراض كنت كجور خنجو جور سكابل نمدي إيرونت مركب مشاكل ما مشكلة وين مركب حاسمين كرت عمل رومانتيك سأونا قتيد قف تعيل أهو ما تسوين كتعيل سأونا قت حاسمين كرت أنا إذا معان
oo markaa shukaansanaysa digit hadda ka tanaasushay ereyadii horta inaad joogto isticmaashid intaa shaqada jirtid mee inta kaloo dhan xilliyaa masjid jirtid xilliyaa hordiysid iyo xilli suuliga qabeys waxyaalo mid aan u gelin oo kale qabeys oo weyn aan u gelin oo kale iyo maana inta kale oo suuliga caada u gelis inta kale in ayada waqtigeeda ku bixisid ayada muhiimku hal saac yoomi hal saac waa waalidkaaga siinay iyo ahalka ka tirsantahay oo qoyskaaga ina waalidka xiriiriso qoyska xiriiriso laga baahan hal saac camal siin kartaa 24 saac inta kale shaqada iyo inta hordeysid mahee ayada inta kale mar u sheekeynaysid mar habsiinaysid mar shuminaysid mar hadal macnaysid marka u sheekeynaysid ma maleysan kartaa aad si ugu farxayso iyo sida ugu qancayso marka xaaska ninkeeda uu sheekeynayo aad iyo aad u qancaysaa wax kasta waxyaabaha xoojinay ka mid tahay in jacaylka dhaqida xilliga dhaqida marka shukaansiga waqti tiro badan ku bixi jirtay saaxiibo maanta waqtiga tirada hadda loo baahan yahay أنا لسعت مجالك سلسلة دمشق سلسلة الحستين مجال قرب بدن سلتكين حياة وقت يدقار حياة مرة بدن حبسيست مرة بدن شمسيت مرة بدن قف جاء الآن قتيد ومد قضب كنا بعد وحيا سنة وإن وناجست معني أيضا مي وناجنس أنا وناجنا أتترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذكر نينا أو ماضي ودا أهلك يعني قوسكي محل محسن يعني إيشك أنا وحريريا وناجيا لكن أيك حمال لا يقولوا رقمها مرك أنا مسي وناك مكسي وذكره وأنت قبل ما تلقى هذا كرو مرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم خوفكم مسلم كه إن وحلا سي وحكم بحيو qof bini'aadam wax si wax kuma siin dabacad qof muslim yeelo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli waxa idinku fiican ninka ahalkiisu fiican laakiin ninka qabiilka iska gadgada oo dhaha heer ma qaadan la aruna inta soo orday caruurtiisna caanahooda rasmi u bixinin xaaskiisna aan baati qurxana faa'id goostaan ama goonin oo dhahay bishii horan ku gaday haji damiya sanadkan u gadaayo kadida ninkaas nin fiican ma qabiilka ba amaanaane ninkaas nin fiican ma ninka fiican waa ninka qoyskiisa ka farxiya xaaskiisa caruurtiisa ka farxiya hooyadiis ka farxiya aabiis ka farxiya ayaa ninka fiicana khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli wa nabi sallallahu alayhi wasallam hadalka nabi maxamed dib loogu naqamay waa hadal xaqiiqo saxiixa marka adiga hal wanaaji ama hal wuxume in wanaajisid wanaag loo tagnat qodobka saddexaad mistabacad keenay maahnayso مسلمينو waxaan khalad u arkay sax u aragtaa waxa sax u arkay khalad u aragtaa okay taas ayadana binaadana nahay hal meel ka wada dunna si guud aragtiyo guud oo kamid ah jirto tusaalaan maxaato qof baahan in raashin la siiyo saxan wada aragnaa maxaato qof baahan in raashin cuno saxan wada aragnaa waxyaalo badan oo waaweyn oo wanaagsan waxa jirto aadan og sameeysan oo kamidaysan waxaas adiga wixii wanaag u arkatid samee wixii xumaan aad aragtid ka fogo xumaan maxaa nabi sallallahu alayhi wasallam kala widi saxaabi oo maaday oo salaad subax habeenkii ku saxdan oo widi salaad subax markuu maado nabi sallallahu alayhi wasallam widi taasoo nabi wuxuu markuu ugu jawaabay dambi waxa ah dhahay wixii naftaada ikraahsato oo dhibsato tusaale ahaan musuqmaasuqa sameeyay waa kula xumaanay marka sameynayso tusaale ahaan ina zina gasharta marka girarta iyo ama marka gasho kadib oo kula xumaanay marka wixii qalbiga kaana ku sameyn waa mid labaad maxay ahayd wax adiga aad rabin in lagu sameeyo ama si aad rabin in lagu dhaqmo ayadaha ku waxeen ayada ka muxum kaamilid walahunna mithlu alladhi alayhinna ilahi li waxa kuleeda kale kugu leedahay intaas la isku fahmi karaa reerka hala qurxiyo bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada qoysaska dhibka ka dhaafa